ciidda Soonfur ayaa looga diyaargaroobaya magaalooyinka Somaliland. Magaalada Hargeysa waxay ka mid tahay magaalooyinka sida aad ka dhaqdhaqaaqa diyaargarowga uga socdo. Suuqyada waaweyn waxay dadku inta badan ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka, agabka carruurta ku ciyaarto iyo sidoo kale waxyaabo kale. Qofba inta awoodiisu tahay. walow farxadda ciidda cid walba diyaar u tahay. haddana waxa suuqa laga dareemay saamayn ay abaarihii dalka ka dhacay iyo xaaladihii adkaa ee dalku soo mareen ay ku yeesheen ganacsiga. sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah ganacsatada dharka iyo kabaha ee suuqa waahayn ee Hargeysa. walaal shaqayska ma rabaan tani rabaanadii hore aad uga wanaagsanaa. dadku waa dareemaysaa inay daalihiin oo ay waxan kore diib badan ka muuqato oo ay ma garanaysaa xoolihiina dib badankooda ka dhamaaday. dad waxa jiray xitaa 700 oo neef lahaa halka noogu yimid oo waxan kore ay xoolaha ka baxeen. waxaasoo meedhan baa walaal ma garanaysaa suuqa aad u wanaagsan. inta badan waqtiyada ciiddu ay soo dhowdahay waxay dadku ku ganacsadaan jidadka dhinacooda iyadoo hore jidadkan loogu xidhi jiray si ay dadku u helaan meel ay wax ku iibiyaan. sanadkasta way ka duwan tahay waxaana ganacsatadu ka cawdeen ciidamada booliiska oo ka daadinaya ama ka qaadaya alaabta sida uu sheegay Faysal Ciise oo ah arday waqtiyadan oo kale ku shaqeysta suuqa. waxaan ka hadlay dawladda oo naga qaada dharka iyo kabaha oo wadooyinkan aanan meelahaas kale aan dhigi karin oo kale inagoo kale marka halkaas kala tahay oo gaariyo halkaasna laga soo dhigay fooq dabadiiso dhinacaas soo wadnaa magaalada ma dhigaaniyo. hasaatee ciidamada booliiska howlgalka ku jiray qaarkood ayaa sheegay inay banaynayaan jidka oo aan loo galay in lagu ganacsado. dadka danyarta ayaa ciidan Soonfur ku qaabilaya cabasho la xidhiidha sicir-barar keenay inaanay waxba iibsan karin. Safiyo Qoreyna ayaa ka mid ah dadkaasi. suuqa uu nagu xun yahay sicir-barar baa nagu kacay waxa la waxaan iibsan kareena ma jirto. maxay baasha ayran imkaasta waxa laga siiyay $5 marka dadkii waxa haysta way iibsanayaan lacag haysta laakiin qofkii waxba haysan carruurtiisa ma iibsan karaayo inaan guriga ku xariirno way wax kala garamayno. marka dawladda waxaan u sheegaynaa in ay doolarka naga jabiyaan inay dadka hoos u eegaan waxa weeyaan dadka xoolaha haysta u deynay maxay u danayaan maahe doolarka haysta doolarku soo galaayo. sarifka $100 ayaa maanta marayay 930,000 oo shilin iyadoo dawladda hore ay u go'aamisay inaanu dhaafi karin 700 oo kun. hasaatee taasi aan waxba ka hirgelin. sidoo kale quutul daruuriga iyo maciishada loo baahan yahay inta badan ayaa ka mid ah waxyaabaha ay saamaynta ku keentay sicir-bararka ka jira suuqyada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland. Cabdi Fataax waa gudoomiyaha ganacsatada khudaarta ee suuqa waahayn waxaan weydiiyay saamaynta ay maciishadu ku yeelatay sicir-bararku. sicir-bararka dhacay wuxuu sababay inuu jeeb kasta uu madho. waxay noqotay in qofkii soo qaadan jiray muxuu ahaay markuu $10 soo qaato $10 ay u goyn jireen waxyaabo fara badan waliba baaqooga soo hadhi jiray. laakiin se imika inay noqoto qudaarta oo kaliya $10 iyo wax ka badan sicir-bararka dalka ka dhacay awgeed iyo qudaartii oo dalka aan ka baxayn oo abaar ay ka jiraan intaas markay isbiirsadeen qoys kasta waxay ku noqotay dhibaato caqabadna weeyaan. sicir-bararka waxyaabaha sababa waxa ka mid ah in xataa qudaartii maadaama xilligan ay ku jiro qudaartu ay kor u kici jirtay wax kala iibsigeedu reer walbana uu qaadan jiray adeeg fara badan laakiin se imika sicir-bararka dartii ay dadku qaataan wax yar oo lacagtoodiiba ay goynayso wax yar. barkhad maxamuud kaariye VOA Hargeysa.